kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay kulanka baarlamaanka ee maanta hal arin oo laga filayo xildhibaanada golaha shacabka madaxweyne Farmaajo oo kulanka maanta lagu wado in uu ka shaaciyo cidda fashilisay qorshihiisii muddo kordhinta miyuu soo hadal qaadi doona khilaafka soo baxaya ee u dhaxeeya isaga iyo ra'iisul wasaare Roble xogihii ugu dambeeyay ee kulanka maanta iyo fariimaha loo diray xildhibaanada golaha shacabka ayaan idiin soo gudbin doonaa madaxweyne Farmaajo oo qaadaya talaabo culus kadib markuu hortago maanta baarlamaanka Soomaaliya waa maxay talaabadaasi culus miyuu isbedel ku sameyn doona xubnaha ku jira dawladdiisa oo qaarkood ka hor yimid qorshihiisa doorashada midowga murashaxiinta oo war culus ka soo saaray kulanka maanta ee baarlamaanka iyo madaxweyne Farmaajo ay ka dalbadeen in uu baneeyo filla Soomaaliya xilli fariin adag ay u direen xildhibaanada golaha shacabka wararkeena kalena waxa mid ka mid ah wargeysyada ugu caansan dalka Mareykanka oo shaaca ka qaaday sababtii rasmiga ahayd ee ka dambeysay inuu madaxweyne Farmaajo iska dhigo amaba iska celiyo dhalashada dalka Mareykanka xogo sir ah oo uu bixiyay wargeyskaasi ayaan idiin haynaa iyo safiirka Soomaaliya ee u fadhiya dalka Kenya Maxamuud Axmed Tarsan kana mid ah saaxiibada ugu dhow madaxweyne Farmaajo oo si cad uga hor yimid muddo kordhinta loo sameeyay dawladda federaalka xilli uu Tarsan ka dalbaday madaxweyne Farmaajo in uu iscasilo amaba uu qabto doorasho degdeg ah haddaba miyuu madaxweyne Farmaajo luminaya markaan saaxiibadiisii siyaasadda waa samaxay sababta ka dambeysay arrintan qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana subax sabti ah 1 bisha shanaad ee May sanadka 2021 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka hadaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiyo saaxiibadeena idinkoo ku sheergareynaya baraha bulshada mahadsanidin aynu ku bilowno wararkeena waxaynu ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyay kulanka ee baarlamaanka Soomaaliya maanta uu ka yeelanayo xaaladda adag ee dalka uu ku jiro iyo madaxweyne Farmaajo oo halkaasi maanta lagu wado in uu ka shaaciyo waxyaabihii isbedelka ahaa ee ku yimid qorshihii muddo kordhinta ee loo sameeyay dawladdiisa federaalka ah ee Soomaaliya xilli xildhibaanada golaha shacabka fariimo kala duwan loo diray waxa maanta lagu wadaa in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hortago xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya si uu ugu jeediyo khudbad ku saabsan arrimaha doorashada dalka isla markaana uu u shaaciyo waxyaabihii keenay in muddo kororsigii ay xildhibaanada golaha shacabka 12 bishii hore u sameeyeen dawladdiisa ay noqoto mid markaasi shaqayn weysa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa toddobaadkan la sheegay in uu 1 bisha maanta ku beegan hortagayo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya si ay uga wada hadlaan isaga iyo xildhibaanada golaha shacabka arrimaha ku saabsan doorashooyinka dalka madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay in xildhibaanada uu ka codsan doono in ay ka laabtaan muddo kordhintii dawladdiisa loo sameeyay kadib markii cadaadis xoog leh uu dareemay madaxweyne Farmaajo isla marhaantaana magaalada caasimadda ee Muqdisho ay soo galeen ciidamo aad u fara badan kuwaasi oo ka gododsan muddo kordhinta loo sameeyay dawladda kuwaasi oo ilaa haatan ku sugan magaalada Muqdisho xildhibaanada golaha shacabka ayaa 12 bishii la soo dhaafay waxay ansixiyeen sharci muddada u kordhinaysa madaxweynaha isla markaana dalka uu galayo doorasho qof iyo cod ah muddo 2 sano gudahooda hase yeeshee sharcigan ayaa waxa ka hor yimid murashaxiinta xilka madaxweynaha wadamada caalamka iyo dadweynaha Soomaaliyeed qaarkood waxaana uu sababay qorshahaasi muddo kordhinta gacan ka hadal ay ka dhasheen dhimasho dhaawac iyo in ay ka barakacaan magaalada Muqdisho dad shacaba xogo soon ka helayno madaxweyne Farmaajo kulanka maanta halkaasi uu ugu tagi doono xildhibaanada golaha shacabka waxay sheegayaan in laga yaabo in madaxweyne Farmaajo uu shaaciyo cidii fashilisay amaba si weyn uga hortimid qorshihii muddo kordhinta ahaa waxa sidoo kale laga yaabaa inuu soo hadal qaado khilaafka la sheegayo inuu dhaxeeyo isaga iyo ra'iisul wasaarihiisa warka ku soo kordho kulanka baarlamaanka waan idiin soo gudbin doonaa insha Allah ma dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya waxa lagu wadaa inuu qaado talaabooyin culus kadib marka uu ka soo dhamaado maanta xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya wararka waaweyn ee la helayo waxay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo ay suurtagal tahay
in uu isbedel ku sameeyo xubno ka tirsan dowladdiisa maadaama la arkay siyaasiyiin ku jira dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ka hor yimid qorshihii muddo kordhinta ahaa ee loo sameeyay dowladdiisa federaalka ah ee Soomaaliya. Madaxweynaha waxa la sheegayaa in go'aamo waaweyn uu soo saari doono marka xildhibaanada golaha shacabka ay isla qaataan kulankooda isla markaana xaaladda dalka meel loo jiheeyo, iyadoo kulanka maantana uu yahay kulan isha si weyn loogu hayo isla markaana laga sugayo natiijooyin wax ku ool ah oo xitaa dadka ka barakacay magaalada Muqdisho oo weli qaarkood aan soo laaban ayaa maanta ka warsugaya xaaladda sida ay noqon doonto. Dhinaca kale, midowga murashaxiinta mucaaradka ah ayaa iyaguna war culus ka soo saaray kulanka baarlamaanka iyaga oo digniin u jeediyay xildhibaanada golaha shacabka. Madaxweyne Farmaajo waxay ka dalbadeen in uu iskaga tago filla Soomaaliya. Golaha midowga murashaxiinta Soomaaliya ayaa digniin culus waxay u direen guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada, sidoo kalena waxa ay dalbadeen in madaxweyne Farmaajo uu faraha kala baxo hanaanka doorashooyinka qaranka isla markaana uu noqdo murashax iyaga la mid ah. Golaha midowga murashaxiinta waxa uu uga digayaa guddoonka golaha shacabka ee muddaxileedkiisu dhammaaday in ay qaadaan tilaabo lagu dibindaabinayo xasiloonida iyo geedi socodka doorashooyinka dalka sidii ay 12 Abriil 2021 iyaga iyo tiro kooban oo xildhibaano ah u qaateen go'aan sharci darro ah oo dalka u horseeday qalalaase siyaasadeed iyo mid amni ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay midowga murashaxiinta. Sidoo kale qoraalkooda waxay raaciyeen golahu waxa uu caddeynaya in madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yahay caqabadda ugu weyn ee hortaagan heshiis laga gaaro doorashooyinka dalka. Sidaas darteed wuxuu golahu ku baaqayaa in uu faraha kala baxo howlaha doorashooyinka isla markaana baneeyo xafiiska uu sida sharci darrada ah u degan yahay amaba ku degan yahay filla Soomaaliya bay yiraahdeen golaha midowga murashaxiinta ee mucaaradka ah. Ugu dambeyntii waxay yiraahdeen golahu waxa ugu baaqayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya in uu si buuxda ula wareego hoggaanka doorashooyinka iyo amniga guud ee dalka. Talaabadani waxa ay sahlaysaa dib u mideynta iyo kalsooni dhiska ciidanka qalabka sida ee ku kala qaybsamay diidmada muddo kordhinta sharci darrada ah. Waxay kaloo xoojinaysaa kalsooni lagu qabi karo hufnaanta doorashooyinka maadaama uu ra'iisul wasaaruhu murashax u ahayn xilka madaxtinimada ee Soomaaliya. Si kastaba midowga murashaxiinta iyo dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa isha ku hayn doona maanta warka ka soo yeeri doona xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. waa hagaag wali warqad TV ayaad nagala socotaan barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliyana waa daawanaysaan. Markaana wargeyska New York Times oo kamid ah wargeysyada ugu caansan ee dalka Mareykanka ayaa warbixin xasaasi ah waxa uu ka qoray sababta madaxweyne Farmaajo isaga dhiibay ama isaga celiyay baasaboorka Mareykanka in uu hadda ka hor qaatay baasaboorka dalka Canada iyo dhacdo ku saabsan jaaliyadda Soomaalida ee Buffalo oo tusaale u ah sida uu xukunka u jecel yahay. Madaxweyne Farmaajo ayaa 1 Agoosto 2019 ka tanaasulay muwaadinimadiisa Mareykanka isagoo aan shaacin wax sabab ah hase yeeshee New York Times warbixin uu qoray waxa uu ku sheegay inay ugu wacan tahay hal sabab oo uu sidan ku shaaciyay. Markii Farmaajo uu iska dhiibay baasaboorka Mareykanka waxaa jiray baaritaan ay waaxda dakhli ururinta Mareykanka ee International Review Service ku haysay maaliyadiisa ama lacagihiisa. Sida ay sheegeen 3 sarkaal oo reer galbeed ah oo arintan xog ogaal u ah kuwaasi oo codsaday inaan la magacaabin sabab la xiriira xasaasiyadda arintan oo ku saabsan madaxweyne dal ayaa lagu yiri warbixinta ay daabacday New York Times. IRS oo laga soo gaabiyay International Revenue Services ayaa awood u leh inay baarto lacagaha iyo dhaqaalaha muwaadiniinta Mareykanka haddii lagu tuhmo qaladaad meel kasta oo dunida ka joogaan isaga oo ka tanaasulaya dhalashadiisa Mareykanka. Madaxweyne Farmaajo waxa uu ka baxay xeyndaabkii ay ku baari kartay hay'addaasi la yiraahdo International Revenue Service isaga oo ay New York Times sheegtay in uu ka cabsanayay in dakhligiisa la baaro. Wargeysku waxa uu sheegay in markii arintan wax laga weydiiyay xafiiska madaxweyne Farmaajo aan wax jawaab ah ka bixinin baaritaanka IRS. New York Times ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday arinta aan horey loo ogeyn oo ah in madaxweyne Farmaajo uu hadda ka hor qaatay baasaboorka dalka Canada.
master maxamed wuxuu Mareykanka yimid 1985 isagoo ah diblomaasi Urdun ah oo ka shaqeeya safaaradda Soomaaliya. Markii dalkiisa uu dagaalada galay, wuxuu go'aansaday inuu iska sii joogo. qof saaxiib la ah qoyskiisa ayaa sheegay inuu marka hore magangeliyo ka codsaday Canada oo ay ku noolaayeen hooyadiis iyo walaalihiis, wuxuuna kadib qaatay baasaboorka Canada ayaa lagu yiri warbixinta New York Times. ilaa iyo hadda ma jiro diiwaan shaacsan oo muujinaya in madaxweyne Farmaajo uu ka tanaasulay baasaboorka Canada. warbixinta ayaa intaas ku dartay in Farmaajo oo markaas uu guursaday uu dib ugu soo guuray Mareykanka horaantii sagaashameedkii uuna degay magaalada la yiraahdo Buffalo ee dalkaasi Mareykanka. sheekada ku saabsan arrintan ayaa wali aysan ka hadlin filla Soomaaliya ama madaxtooyada dalka looga arrimiyo. ugu dambeyntiina safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo saaxiib dhowlaha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu soo duubay muuqaal talo iyo tusaaleyn ah oo ku socda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Tarsan ayaa waxa uu ka codsaday madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu qabto doorasho degdeg ah amaba uu xilka isaga tago. hadalkan Tarsan ayaa waxa uu micnihiisa amaba ujeedkiisu yahay in loo baahan yahay in tanaasul siyaasadeed la sameeyo. arrinta la yaab kale ayaa waxay tahay in madaxweyne Farmaajo mudooyinkan dambe ay ku soo badanayaan siyaasiyiinta isaga markii hore taageersaneed balse ugu baaqaya in uu xilka wareejiyo amaba doorasho degdeg ah dalka uu geliyo. arrintan ayaana lagu micneeyay inay tahay qorshaha muddo kordhinta ah oo qof waliba uusan doonaynin in muddo kordhin loo sameeyo dowladdan hadda jirta, isla markaana loo baahan yahay in doorasho la qabto. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkan war lamid ah inta aynu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.